qodobada daawan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo cunaqabateynada ku soo rogay qaar kamid ah madaxda ugu sarreysay ee dalka Itoobiya Abiy oo kamid ah iyo dowladda Itoobiya oo loola dhaqmayo sida dowladda Ruushka ee Vladimir Putin waalidiin soo gudbin doona daawadayaal dowladda Itoobiya oo maalmo u qabatay in ay markaasi dalkeeda uga baxaan guddiga ee qaramada midoobay u saartay inay dhexdhexaadiyaan Itoobiya iyo TPLF maxaa isbedelay xaaladda Itoobiya oo ka sii daraysa iyo cunaqabateynta markaasi la saarayo Itoobiya oo sii kordhaysa waalidiin soo gudbin doona daawadayaal Abiy Ahmed oo bilaabay hub urursiga ugu badnaa hanjabaad culusna u diray dagaalka ama dalalka Tigreega markaasi taageeraya waalidiin soo gudbin doona daawadayaal qodobadaas iyo hadba waxay nagu soo kordhaynteenu barnaamij wareedkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan balse haddii aad nagu cusub tahay markii kugu horeysana daawanayso subscribe noo saar channelka si share garay muuqaalka laag saar sidoo kalena gabaleelka furasi ee mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelin waad ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kordhiyay fulinta amarka cunaqabateynta lagu soo rogayo qaar kamid ah mas'uuliyiinta dowladda Itoobiya marka loo eego qalalaasaha bani'aadanimo iyo xuquuqul insaanka ee ka jira dalkaasi Itoobiya inkastoo cunaqabateyntan oo 2 sano jirsatay haddana dowladda Mareykanka ma aysan shaacin magacyada saraakiisha markaasi iyo mas'uuliyiinta kale ee cunaqabateynta lagu soo rogay warqad 9 Sebtembar markaasi loo diray afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi iyo madaxweynaha sanadka Patrick Leahy oo ku saabsan sii socoshada xaaladda degdega ah ee qaran ee ixtiraamka markaasi Itoobiya madaxweyne Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay fulinta amarka 14,046 kaas oo la soo saaray 17 Sebtembar 2021 waxaana ay markaasi sii bilaaban doontaa wixii ka dambeeya Sebtembar 17keeda 2022 xaaladda ka jirta iyo sidoo kale tan la xiriidha waqooyiga dalka Itoobiya waxaa lagu calaamadeeyay dhaqdhaqaaqyo khatar ku ah nabadda ammaanka iyo xasiloonida Itoobiya iyo gobolka Geeska Afrika oo dhan gaar ahaan rabshado baahsan iyo xadgudubyo halis ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin kuwa ku lug leh rabshadaha markaasi ku salaysan qowmiyadaha kufsiga iyo sidoo kale noocyada kale ee rabshadaha ku salaysan jinsiga iyo carqaladeynta howlaha bani'aadanimada waxay sii wadaan markaasi in ay keenaan khatar aan caadi ahayn oo waxyeeleynaysa amniga qaranka iyo sidoo kale siyaasadda dibadda ee Mareykanka sidaasi daraadeed waxaan go'aansaday in ay lagama maarmaan tahay in la sii wado xaaladda degdega ah ee qaranka ee lagu dhawaaqay ahna fulinta amarka 14,046 ee khuseeya Itoobiya sidaas ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxaa kamid ah xayiraadaha badan ee markaasi lagu sheegay fulinta amarka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waa qayb awood u siinaysa xogayaha maaliyadda inuu markaasi ku soo rogo cunaqabateyn adag oo ay ku jiraan xanibaadda dhammaan hantida markaasi iyo danaha shakhsiyaadka gaarka ah khatarta markaasi ku ah nabadda amniga ama xasiloonida Itoobiya ama kuwa leh ujeedada ama sidoo kale saameynta ay leedahay balaarinta fidinta markaasi xiisada ka taagan waqooyiga Itoobiya ama markaasi la hor istaago xabad joojin iyo geedi socodka markaasi nabadda nidaamka cunaqabateyntu waxa uu markaasi gaarsiisan yahay shakhsiyaadka loo arko qayb hoosaad markaasi siyaasadeed kaalad markaasi ama qalabaynta dowladda Itoobiya dowladda Eritrea ama jabhadda dimuqraadiyadda iyo colaadaha ee talada haysa jabhadda xoreynta shacbiga Tigray ee TPLF dowlad deegaanka Amxaarada ama sidoo kale ciidamada gobolka Amxaarada iyo kuwa aan joogtada ahayn intaba dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay hadalka guddiga caalamiga ah ee khubarada markaasi xuquuqul insaanka ee ku saabsan Itoobiya waxayna markaasi ku gacan saydhay wax aad looga xumaadana ku tilmaantay baaqaawan oo ay sheegtay in golaha ammaanku ku dalbanayaan in tallaabo laga qaado dowladda Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeysay komishanka in ay markaasi hubeeyaan jabhadda TPLF ee dagaalka kala horjeeda dowladda Itoobiya waxayna sheegtay in bayaankeedii ugu dambeeyay
uu daaha ka rogay ujeedooyinkeeda dhabta ah oo markaasi laga saaray dhammaan albaabadii wada shaqayn ee ay la lahayd dowladda Itoobiya. bayaanka wasaaraddu waxay markaasi jawaab u ahaa xubnaha qaramada midoobay u magacawday guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqul insaanka ee ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay xaaladda Itoobiya iyo geeska Afrika ku sii hayaan ajandahooda iyada oo la eegayo culayska ay leedahay xaaladani. Komishanku ma laha karti ama sidoo kale qadarin ku habboon colaadda ay TPLF kicisay ee ku xadgudbay xabajoojinta sidii loo ilaaliyo bani'aadanimada. Komishanku iskuma markaasi kibrin karo awood ay ugu dhawaadaan ama ugu dhawaaqaan arrimaha khatarta ku ah nabadda iyo ammaanka ayay wasaaraddu tiri. waxayna markaasi diiday baaqa guddiga oo ay ku tilmaantay xadgudub xad dhaaf ah iyo sidoo kale baaqawan oo ah in golaha ammaanku tallaabo ka qaado Itoobiya iyada oo aan la eegin dhibaatada ay geysanayso kooxda TPLF. wasaaraddu waxay sidoo kale ku canaanatay komishanku in ay muujiyeen dhaqan aan taxadir lahayn waxayna markaasi cadeynaysaa sheegashada xukuumadda ee ah in xalinta dhismaha markaasi guddiga iyo howlaha guddigu ay yihiin kuwa siyaasadeed. wasaaraddu waxay ku soo gabagabaysay hadalkeeda iyada oo markaasi la diidayo hadalka ka soo baxay komishanka. wasaaraddu waxay iclaan markaasi ama jeclaan lahayd in ay ku celiso sida ay uga go'an tahay dowladda Itoobiya in ay sii wado ixtiraamka xaqiijinta xuquuqda aadanaha iyo horkeenista kuwa ku xadgudbay sharciga. ugu dambeyntiina Abiy Ahmed ayaa markan seeftiisa gasha kala baxay waxa uuna si cad markaasi ugu dhawaaqay in uusan wax wada hadal ka doonayn kooxda TPLF ee muddada markaasi 2 sanadood ka badan la dagaalamaysa dowladdiisa. waxa uu haatanba markaasi bilaabay in uu diyaariyo asgar iyo hub fara badan si ay ugu jihaystaan dhinaca gobolka Tigray oo ay ugu baabiyaan dhammaan dadka halkaasi ku nool ayada oo aan markaasi loo eegin asgar iyo shacab intaba. Abiy waxa uu shir gaar ah qadka telefoonka kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay ka wada hadleen iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal maadaama labada dalba ay qalalaaso xoog leh oo dagaalo ay ku furan yihiin. ilaa ku dhow madaxtooyada Itoobiya ayaa inoo xaqiijiyay in Abiy uu hub iyo saanad military u weydiistay Ruushka taasoo jawaab cad markaasi uu ka siiyay Sergey Lavrov. waxaana loo sheegay Abiy in dowladda Ruushku si aan gambasho lahayn markaasi u garab taagan tahay dowladda Itoobiya xaalad waliba. Lavrov waxa uu sidoo kale Abiy u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalabkiisa ula soo gaari doonaan. waxaana wararka aan ka helayno dalka Itoobiya ay sheegayaan in wafdigii ugu horeeyay oo Ruushka ka socda uu gaaray magaalada Addis Ababa oo ay ku taalo madaxtooyada Itoobiya halkaas oo ay kulamo degdeg ah kula qaadanayaan madaxda ugu sareysa dalka Itoobiya oo Abiy Ahmed ugu horeeyo.